maamulka gobolka iyo kan degmada Boorama ayaa waxay maanta si diiran ugu soo dhaweeyeen magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal hogaanka dhaqanka bariga gobolka Sanaag oo maanta soo gaadhay magaalada Boorama waftigoodii dhaqameedka uu horkacay wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed ayaa markii ay soo gaadheen duleedka degmada Dilac waxay soo dhaweyn diiran kala kulmeen salaadiinta gobolka Awdal barasaabka gobolka Awdal maayirka magaalada Boorama xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale waxaana la soo galbiyay gudaha magaalada Boorama iyagoo kulan ku wada qaatay hoolka jaamacadda Camuud ayaa waxa halkaasi laga soo jeediyay hadallo soo dhaweyn u badan salaanta markaad naga guddoontaan tii magaalada iyo tii gobolkana waxa idin siin maayirka iyo barasaabka laakiin naga guddooma halkaana waxa idin ag fadhiya iyadana dhinaca idinka xigta jaamacaddu Soomaali meelay degan tahayba arday way ka timaadaa geeska Afrika Soomaalida geeska Afrika farxad bay noo tahay hogaanka dhaqanka ee aanu maanta sugaynay haddii si nabad qaba ay noogu yimaadeen waanu raagsanay waa welcome baan idin leenahay horta waxaan idin leenahay welcome soo dhawaada waxaan idinku soo dhaweynaynaa oo kale nabadda iyo deganaanta iyo dawladnimadu horumarka ay leedahay inaad sii aragtaan oo runtii inagu bari waynu sognahay inta lana dheeryahay inaad aragtaan si aynu u higsanno halkaad joogtiin waa caasimaddii nabadda waa caasimaddii horumarka waxa hareeraha inaga joogna waxa weeyaan dhalinyartiinnii ubaxa ee wax ku baranaysay halkan intiinnii weeyaan inta maanta meesha joogti jaamacadda Camuud oo ah goob Soomaali oo dhan kulmisay ardaydeeda annana aanu ka midna ardayda maanta wax ku baranaysa sida ay idin soo maanta aad nooga mid noqoteen aad u timaadeen baanana u joognaa inta aanu safarka ahayn waxaanu ka soo bilownay gobolka Sanaag Bari ilaa iyo maanta aanu joogno gobolka Awdal degmada Boorame waxaanu ku soo maray nabadgelyo waxaanu ku soo baray anshax waxaanu ku soo maray soo dhaweyn leeyahay waa ku mahadsantihiin soo dhaweyntiina diiran waa ku mahadsantihiin waynu is wareysaneenaa anigu waa dhaafi doonaa jaamacadda oo guriguri baan u geli doonaa waa joognaa xaggana waa joogay dhul badan baan soo maray ama USB ha noqoto ama wax kale ha noqotee wixii aynu reeraha kan qoliyaha kan aynu marka niraano wixii aynu ka qarsan jirnay hoos baynu ka hadlaynaa way suuraysanaynaa dadweynahaba sidii quruxda badnayd ay noo soo dhaweeyeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maantana annagoo joogna hoygii waxbarashada jaamacaddii Camuud marka insha Allah ilaahay hay noo siyaadiyo wixii nimca shirkeena nabadgelyo iyo guul Allah ku dhameeyo ilaahay wixii khayreenu rabna Allah ina siiyo wax la diidayo maaha marka idinku sida qalinka ku hanateen oo qoriga ku xorteen reer Awdal oo u sheegay wanaagga tulkiina waxaan ku buurinaynaa oo aan ku wareernaa in wadanku u baahan yahay nabad in laga wada shaqeeyo isku xidhnaanshaha isku soo dhawaashaha aadna waan ugu faraxsanahay waana arrin aad u fiican in odayaashayada ama isimadu ay arkaan horumarka iyo heerka la marayo halka jaamacado iyo laga shaxayo in laga tegayo aan maanta laga sheekayn karin waxba la heshiisiinaya iyo laba la isu soo jiidjiidaya iyo waxaas wax qarni hore dhamaaday in aad laga tegayo dhulka ool waana arrin ku dayasho wacan ku soo dhawaada gacmo furan waxa weeyaan dadku waa dadkiini dalku waa dalkiini soo dhawaada si ay aanu u muujino in dadka iyo dawladdu ay isku xidhan yihiin arrintaasna aad iyo aad bay muhiim u tahay marka waxa la soo dhawaada warku u dambeeya waa la wada fadhiisan doonaayo sidoo Suudaanku sheegay imiga waa soo dhaweyntii laakiin wixii la sodhanayo hoos baa la isku odhan anaguna kullu fariinteeda waxa weeyaan in khayr la isku sheego khayr ma kullu la isku sheeg insha Allah ta'ala marka xasan anu ku hadlaya afka waftiga xukuumadda ka socda oo aanu han gobolka ka hay ee maanta ku soo dhaweynaya gobolka Awdal caasimadda Boorama inaanu maanta halkan ugu soo dhaweyno farxad bay noo tahay taariikh bay noo gali doontaa insha Allah waxaynu ka wada shaqeynaa qarannimada iyo midnimada Soomaaliland wixii aynu is oranayno dhaqanka is oranaysaan waa la wada fadhiisanaya qadada dibadeed fadhigaynu wax isku oranaynaa fadhigaynu isku tilmaamaynaa fadhigaynu ku iyad ku wada hadlaysaa xayeer weyne Kalsan TV Boorama